waxaan u yeerayaa 12 mashruuc ayaa calaa qof inta usoo istaagi doonaa markaan magaca sheego tiimka qofa halkan u imaanaya iyaga ka socda markaa sharaxaad yar ka bixiyo 12 qof ee mashruuca ka socda markay halkaas soo istaagaan kadib ayaan waxaan siin doonaa hadalka guddiga ilaa iyo calaa qof walba iyadoo qofka ugu dambeeya uu natiijada ku dhawaaqi doono hadduu rabbi idmo 12kiina waa dhantihiin waxaan ku wareeji doonaa guddiga oo aan iyagana sidoo kale qof u xusi doono magacyadooda hadduu eebbi idmo kadibna hadal jeedintooda kadib natiijada lagu dhawaaqi doono ugu horreyn waxaan soo dhaweynayaa oo aan ka bilaabayaa أستاذ عبد الرزاق حاشي هو دنك مدك حاجة سودو. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وما إلهي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهل إذا تدح الحكومة إنسان عدالة سمعية ورسا أنه وحنا نقول إن شاء الله عدالة قف أنقار النقانو مجرته ناس إلهي ونقوكم dad Soomaaliya ma tuhmaysan baan u maleynaya markay yeesi ku galin inkii sheedaan hawa xiran yahay xirayay way yar miyaa jira waa way ku xiran yihiin kuwa kale iyo naftaadu yana kula tagin is oran saasa la yeelay taas ma jirto annagu wixii la muuqday guddiga isla kala duwana qiimeey isma oga qiimaha la helay baa la isku dardaray average laga soo saaraa haduu hebel qiimay intaas qof qiimeeyaan qof xataa hadii waa la isku darayaa waxa laga saaray celcelis taas aan soo saarnay qof kastana waa la qiimeeyay wixii laga qiimeeyana qodobada laga qiimeeyay qof walba waa lagu dadka oo dhan ay wada sameeyeen qodobada laga qiimeeyay suurowda in aad fiicanta aad leedahay wallahi kayga koow noqonaya waa noqon weysa laba noqoto ama saddex noqoto ama wax kale meel kale aad gasho waxa suurooday inaan maanta leedahay wallahi lacagtaan iyo hawshaan ay kugu fiican tahay waxa dhigtay ilaahay inuu ka reebo meel kale ka fiican inaad tartan u gasho ka hesho ilaa markaad meel tartan gasho meel kale aad ka noqon kartaa waxa dhib male oo lacag badan lagu bixinayo qorshada marka waa asa anta karo shay'an oo khayr lakum marka marna u qaadan ku soo baxay isaga raali noqo wax dhaama ma jiro in qofku ku raali noqdo annagana waxa naga ahta waxaan aragnay aan qornay sida nabi Yusuf iyo Allah wama shahidna illa bima alimna wax kale ma hayno marka waxaan rajaynayaa wixii meeshaas ka soo baxa inay ku qanacdaan maadooda cadaalad ay sameeyaan wax kale loo kala leexinayeen ay jirin insha Allah ta'ala wixii horumar ahna iyo qoladii wax sameysay si wadaan amaanta waxa la tusay meelaha ka babanaan qofku wuxuu ogaaday qofkii isku dayay nalkan sameeyay markuu intaas isku dayay wuxuu yiri intaas oo shay oo aan shaqeynay baan ogaaday yaal hab shaqeynay inta isku dayay marka waxa hadii khalad intaas oo khalad aan bartay yaal hab fiican inta ka soo qayb gasho waa horumar kuwa aan ka soo qayb galin jira kuwa aan meeshan soo gaari karin baa jira marka intaan waa dadaalay qofkii yimid qofkii soo gaaray maanta waxa day ka tabari kuwa kala haray hawl kala hadhiman marka maalin meel bay maraysaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa intii ku qanca dii ilaahay yiraahdo وانا رجيني اقول انا رجيني انت بدل السلام عليكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله horta hadda waxaan oo dhamaaday wareegii koowaad wareeg labaad jiri doona mid saddexaad jiri doona kaliya waxaan rabaa inaan xusuusiyo wixii war macallinkayga dhameeyay waxaan xusuusin lahaa maalin dhow markaan meeshan idinku nimid oo idin la hadlayay hal eray aan yiri dhamaanteen waxaan nahay guuleystayaal number 1 horta isku dayaan sameyn isku daygan inaan meeshii looga harin inaad hore u socotaan in aad raadsataan investment sources kale ama friends ama family ha noqoto ra'yigiina ama ideadiina inaadan meeshaas uga harin waqti waa idinka soo galay waxaan waa dhowr habeen oo la soo jeeday presentationadan meesha iskamadan imaan waxa waqti badan idinka galay fikradii isaan filayo oo ku ballanay maalintii dhaweyna waa fikrad aad aaminsantiin marka meeshii yaa looga harin dad badan oo idin la shaqeynaya jira oo xitaa idin caawinaya ama investors ha noqdaan ama si kale ha noqoto bangiga laftiisa waxaan hubaa facilities uu leeyahay oo haddii fikradii laga dhaadhiciyo agreement kale iyo qaab kale oo aan ahayn deeqda hadda la idin siinayo loola shaqeysan karo marka waxaan ku dhiirigelinayaa horta inaad meeshaas uga harin waxaan idin xusuusinayaa mas'uuliyadda idin saaran ee ah in aadan noqonin qalinjibintiina wax yar baa ka dhimanay dad shaqo doon ah ay noqotaan shaqo abuurayaal
dardaarankeena waa kaas weeye aad baan u mahadsantihiin asalaamu calaykum raaligelinta laydinku badinaya hal midaan raba inaan idiin xasuusiyo waxaan tartansiinay madada mise waa fikrado waxaan kala dooranayna waa maxay fikrado way soo maha mise dadaan kala dooranay mise jaamacadaan kala dooran lahay okay hadduu labiska ay qaldiya ma qaldan just ay dhigadaada waxaa maanta waxaa la dhihi jiray sarad ma gadantay waxaa gadma neefka hadduu uu aad u cayilan yahay qurxan yahay maanta suuqa hilib laga rabayn ka warrama ma gadnaayo soo lacagtiisu waa maxay haddii ka waran laakiin neefkaaga uu caata yahay laakiin suuqa hilib la-aan shidan ay ka jirta ka warrama waa qaali soo maha labadii neef maa kala fiican marka maya kii raqiiska haa fiicnaaba laakiin xaaladaha kala duwan annaga waxaan fiirinayn businesskan maanta applicable ma ku yahay ma u noqonaya suitable marketka hadda jira maanta isla maanta ma shaqaynaya ninkii dhaha hadda dayax gacmeedan dira maanta soomaaliya isagoo jooga maxaan leenahay business xun miyaa maya laakiin maanta ma soconaa another idea waxa waaye try inad waa isku dayaa samayso waa markii kugu horreeyo waxaa laga yaabaa qaar ka mid a waa laga yaabaa dad inay hore u sameeyeen markii kugu horreeyo proposal inaad diyaarsato wax gudbiso ama aad isku dayda inaad noqoto employer instead aad marka hore cv-yadaad u geyn jirtay inaad noqoto shaqaale inaad noqoto laakiin maanta waxaad leedahay waxaan shaqaalaysiinaa intaa waa intaasoo ugala sii dhawaataa ma maqasheen weli waa intaasoo marba mar ka dambeeya I think bankigu wuxuu noo sheegay ma aha markii ugu horreysay mana noqonayso markii ugu dambeysay sanad walbaa la qaban doonaa waxaa laga codsaday hadda ay ka codsadeen dadka dhan inay tirada ka badiyaan tirada hore dad aan competitorskana waa sii badan doonaa intaan ma noqon doonaan iyagala laakiin mar walba waa ka fursad fiican tahay nin cusub oo weligii aanan wax samaynin I remember waxay ahayd 1994 maraan gudbistay anoo businessman ah oo yar laakiin ma weyneeya da'deedii aan la fiirinaya ma ku tusaysa da'deedii ayaan waxaan gudbis business aan lahaa dukaanaan lahaa marka 1994 marka qolaha hay-ada waxay gudbinaysay bixinaysay lacag aad u yar oo dayn ah laakiin ma aha midaan siisbada ah daynkiia waxaan u qortay proposal computer ma jiro aqoon badan ma jirto qalinkaygaa lagu qorayaa qalinkaa qaadaya waa geynaya si aan wax dayn kuu siino maxaan kugu siinaa lay weydiinayaa markaasaa le waxaanaan ku qabanaa waxaanaan ka soo saaraa anna waa noolaanaa lacagtaadina saasaan ku seef garaynaya waxaan subaxi qline aan u galay 2 saac waxaa laga qabtay dukumentiga 8 saac oo duhurnimo wajida marka resourciga maanta waa ka fiican yahay waxa wax ku baranaysaa fudeedka gacantaada saan leedahay bas habeenkii nal xataa ma jirin waxaan ku qoray mataqaanaa faynus marka fursadii way fiican yihiin waana kaga sii dhawaad doontaan insha allahu tacaala wax badanna waa laga baran doonaa waxaan ku wareejin doonaa hadda xilliga intaas aan kusoo koobaa bilahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ترتميش وان سلامية شقاضو في عمبد قواتين وان حنبليينيا إن كل يودوتنا دلة ترتمو داعدو مع كلمة هرسو قش مركا وحن دكو حنبليينيا إن دكو ديرهتين إن البرنامج كن كقيب كشان وحن رجينيا مستقبل كرمتي إن ميلا بدنو كلنا كقيب قلي دونتان fursad badan aad heli doontaan natiijada haddaan ku dhawaaqo waxaan u sheegayaa sidii loo kala galay allahumma salli calaa maxamed aan ugu horeysay xirfadle wuxuu helay 7%. waxaa isla ku xigay oo markaa isla ku jiray in home decoration Sophia waxay heshay 52.3 beesh kulmiye dairy milk baa kusii xigay wuxuu keenay 56. waxaa ku soo xigay kobciya fatrin baa ku soo xigay wuxuu keenay 63. waxaa ku soo xigay allahumma salli ala muhammad toothpick wuxuu keenay 45. waxaa ku soo xigay amal online waxay keentay 41. waxaa ku soo xigay cagaaran waxa uu keenay 65. waxaa ku soo xigay Salam Fishing Company waxa uu keenay 49.70. waxaa ku soo xigay Daryeel waxay keeneen 56.3. waxaa ku soo xigay Qaab Wanaag waxa uu keenay 56.3. waxaa ku soo xigay Riyadh Food Truck wuxuu keenay 51.70. waxaa ugu dambeeyay
aaran waxa uu keenay 82.3 numbariska aan idin yeedhiyey guddidu markii hadda ay ka garnaqaysay xaalaha cajiibka soo baxa waxaa ka mid ah way sudowda dhowaayeen xagga markiska yacni siday u siisiin waxaad cadaaladda ka dareemaysaa yacni farqi weyn oo kala dhexeeyay muu jirin haddaan marka ay tuso lixda maanta guulaysay tartankan ee u gudbaya tartanka beritoole waa aaran agrifarm wuxuu keenay 82.3 xirfadla waxa uu keenay 70 cagaaran west management waxa keenay 65 kobciya fatin wuxuu keenay 63 daryeel telemedicine wuxuu keenay 56 qaab wanaag paperback wuxuu keenay 56.3 lixdaas projecti ayaa kaalintay labaad u gudbaya taasoo berito la qabsoomi doonta dhammaantiin waan idin hablanaya aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu way mahadsan yihiin guddiga natiijadana la wadaagay markaan cid kasta dareenkeeda min kelmad iyo daqiiqadahan taan siinaynaa sidaan ayaan ku wadaynaa marka adiga kaa bilaabaynaa soo dhow magacaaga iyo businesskaaga dadka u sheeg kadibna dareenkaaga بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waxaan ahay cabdirmaan xasan yuusuf jaamacadda ummadda soomaaliyeed ka socda waxaan ahay matalaha aaran agrifarm insha allah waxaan rajeynayaa aaran agrifarm mashruuca anagu aan wadno inuu yahay national asset waxaan rajeynayaa inaan noqono guuleystayaasha boontiga ugu muhiimsan ee aan isleenahay waa gaari doontaana waa in soomaalidu ay ka gudubto xoola raacashada u gudubto xoola dhaqashada waana ku faraxsanahay darajadan inaan soo gaarno alxamdulilah بسم الله مقعي شمس آدم محمد واي بروجكت أو ترتمين وحوها سلام فيشن كمباني رنا هانتي مركا إيمانيني إلا أي وقت حدا كان وقت شنين إنا جوشي جارينا إلا أي حدا نموجود درسنا جوشي وجارنا الحمد لله وحوهم بلينا وهرين ضدك يكوبوا ليستيل حدا بروجكتي وحن لا وإذا هم بلينا هروسي سعدة أنا جنا ما هرينا ويلي واسيس أنا رجوين وأنا جرتا ويلي رجل عامين ونقلن mahadcelinta ugu weyn oo aan u jeedinayo Ustaad Mubaarak aad u mahadsantahay leenahay dhiirigelinta badan aan oo sameysay marka intaas oo soo koobaya waan ku faraxsanahay guusha aan gaaray ani ahaanna isku hambalyeynaya midaas magacayga waa Safiya Bashir Shariif barnaamijka ku tartaman waa Sophie Decoration runtii waan faraxsanahay heerka soo gaaray laba tookaba guuldar ma ahan waa guuleystay kor iyo hoos macna heerka soo gaar oo faraxsanahay waan u hambalyeynaya inta guuleystay inta kaleba guddiga sharafta leh oo ku mahadsantihiin dhammaan marti sharafta ani ahaan wallahi guul ay tahay heerkan soo gaaray insha Allah meesha man ku ekeen dooni hore u sii socon doona waxyaabaha jeclaa waan ka dhaweynaa insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد الرزاق أحمد قيل وحان كصدى جامعة الجمهورية وحان كنت ترتمين حرفة فريلانس بلاتفورم هذا أقول فرح سنة إن كالنتاس كسوم مغني وحرجين إن كالنتاس يمال كسر أنا كم مغنو وحانوهم بلينا يا ترتمياش اللي حدا سوق بي سوق الواحد بلينا كرتمياش اللي حدا أيقونا كسوم مغضي وحيار هنا كشيء كيو برنامج كان مركي اللي يسوق يسينا أي ترتنو عنه كلام كجري إلهي وحق قدر اللي حدا سوق لنا قالوا أو ماشي وهو سيساه uguma hoosin laakiin isku dayo ahaa gurigan tagay waxaan xusuustaa inaan afuray markaan afuray oo salaad tukaday wax yar jooga la soo wax jaamacadii laga soo wax jaamacada in bitisal raba xaqiiqo waxa kaalinta ugu hooseysa kaalinta ugu sareysa barnaamijkaas ahayd marka waxaan rajeynaa idinkana sidoo kale inaad program kan iyo meelo ka sii badan inaad idin rajeynaa insha Allah waan balena thank you بسم الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد مقعي وإسماعيل عبد الله علي وحن founder of Agaran Waste Management هذا أوفر أحسن هاي كانت أنقصو قلي وحن بلها تيم دمان أنقصو قيب قلين جوديان ومهد عنا عن يدمان خيب كلياشة and thank you very much بسم الله الرحمن الرحيم مركور مقعي ومحمد عاصم موسى وحاك سعودة شركة صمت عن صومالي توث بيك اندستري والله waxaa farxad ii ah horta inaan barnaamijkan ka soo qayb galo fikrad naga guuxaysana aan soo bandhigno waan rajaynaynaa insha Allah marar kale oo badan inaan ka faa'iideysan doono hal abuurkeena ama fikirkaana inaan ka dhabeey doono insha Allah aan noqono shirkadda ugu horeysa ee Soomaaliya laga furay ee soo saartay istakeen insha Allah بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
horta aad ugu faraxsanahay marka hore inaan meeshaan imaano oo tartankan kasoo qayb galno waxa waaye waa soo jimaadeena jimcad dheer kadib insha allah jimcadduna waa sii socon doontaa waxaan u mahad celinaa raggii soo qaban qabay barnaamijkan oo kaalinta weyn ka lahay ugu horreeya ustaad mubaarak insha allah weli rajadu maysa dhiman dadaalkuna waa sii soconaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد magacaygu waa Ibrahim Cantoob waxa uu tartamayay kulmiye dheeri milki tartanka adka ee galnay maaragtay aad ayaan ugu faraxsanahay waxa uu mahad celinayaa guddiga sidoo kale si gaar ah ustaad Mubaarak oo barnaamijkan ma arkino soo hal abuur asna aad ugu mahad celinayaa dhammaan guud ahaan bangiga aad ayaan ugu faraxsanahay waxaana aad ugu hambaleynayaa dhexda soo baxday inay hore u socdaan annagana dabcan ma ahayn wax iska dhahnay waa si dadaali doonaa waana ka dhabay doonaa insha Allah بسم الله مقعي وسويب يوسف بشير وحنا كمباني دريال تيل ميديسن هذا وفرح سنة ورتين أقسام وقنو لحدا جروب القاتي وحنا رجينا إن سرو قادنا كالنتا كجرنو كالما وصرنا أقلنا وحنا هدف كين وحوجه هنا عاف ما تدلك سرو قادنا أن جوجينو وحلو يقانو عاف ما درها دلك كجرتا يو هذا ورجينا نار تسكسونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته magaca ku tartamay waxa amal online market insha Allah marka waxa ma jecelna dhamaan gudi tartanka qabtay Ibrahim Bangi iyo maxaa waa ismaal oo macna taamnu si juhud inuu gelina tartankan ka soo muuqan hal awoodkana soo muuqanay macna maanta waxa soo muuqanay bis anaka hal awoodkana ujeedooyinka soo bandhiganay dadka maal insha Allah waxa rajeynaa mashruucan inaan meeshan ka sii wadno si daalno dhamaan tartamayaasha soo gudbin oo ma jecelna insha Allah in dadaalku ayagana meesha ka sii wadaan insha Allah guulan oo rajeynaa بسم الله مقعي وسكرية عبد الله داهر waxaa kamid ahaa teamkii kobciye fighting center run ahaantii aad ugu faraxsanahay maanta horta guusha ugu weyn ee gaarnay waxay tahay inaan nafteena aad tijaabinay oo aan waxaan soo baranay inta meel soo istaagna professor aan ka horjeedi karno ayada laftirkeeda geesinimo ah oo wax taas waxay ka tarjumi doontaa wax badan oo dadka Muqdisho wax ku barta ama Soomaaliya ardayda wax ku baratay ma tayasarayaan laakiin waxaan rajeynaynaa insha Allah ayadoo markii ugu horeysay aan soo bandhignay barnaamij aad u wanaagsan inaan ka mid noqono lixda ugu horeysan aad ugu faraxsanahay saaxiibada kale waxaa leeyahay mar walba waxaa ogaataa fikirkaaga ma liito kaliya marka waxaa laga yaabaa waxyaabo yar yar inaad sii adkayso ha is dhihin waa liidatay runtii Cali Baaba maanta barnaamijyada kusoo laalaabanaya markuu kuu sheekeynayo shaqooyin badan loo soo diiday ama meelo badan oo ku faal garoobay marka fail maahan tani waa inaad hore u sii socotid forward ka sii qaaddiin oo aad hore u sii soconayna waxaan rajeynayaa insha Allah meesha ugu sareysan gaarno ustaad Mubaarakna waxaa leeyahay aad u mahadsantahay barnaamijkan aan oo keentay professorada kale ayagoo sooman waqtigooda noo hor haddana cadaaladna inay noo xukumaan isku dayay aad u mahadsantiin insha Allah bangiga Premier Bank sidoo kale aad ugu mahad celinaynaa wuxuu horseed u yahay horumar iyo guul bulshada Soomaaliyeed gaar ahaanna wuxuu u gargaaray ardayda meesha CV la wareegayna dad fikrad la imaal u dhah ayada wax weyn insha Allah aad u mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد الله علي عمر وعن كم هذا أرضي مثلث جامعة SIU أنا كنت ترتمى عوانك قواناك بيبر باك مانوفاكتشرنج كمباني هذا نقول فرح سنة يعني كارنت كوات كصباحه أنت كلمة ورا كصباحه مركا أنت أسكسو قد بمركا وضحنا ربنا أمهد عليو بنك بريمير بانك فرصدان النسيي مركا لو أنه وحنا أمهد عليو أستاذ مبارك وكانت إنه السيي أسقنا إن الماركتا أن فكرتين عن صوب بدنا marka saacad waxaan rabaa inaan mahad celiyo guddiga panelka noo fadhiyay cadaaladda inoo sameynayay ayagoo sooman waqtigooda inoo hore aadan ugu mahad celinaya marka u dambaysa waxaan rabaa asxaabta inaan iraahdo halka tilaabo waxay ka kunka tilaabo waxay ka bilowdaan hal tilaabo halkaas tilaabo qaadanaysa hadaa qodax meesha uga jeedo ma joojinaysa laakiin lugta dhinac kale inta qaada meel kale dhigeeda marka maanta hadii wax yar caqabad ama gaab yarna galay aysan noqonin aan joojino tilaabadii aan hore u sii qaadno aad u mahadsantiin wuxuu noo ahaa maalin weyn oo dhammaantiin aan istijaabinay isla markaana aan dhiiranaan iyo geesinimo ka qaadnay waan inaan markasta u mahad celinaa Premier Bangi iyo Ustaad Mubaarak iyo cid kastoo kaalin ku leh inuu barnaamijkan qabsoomo noo suura geliyay dhammaantiin waa idin mahad celinayaa guddiga Ustaad Mubaarak tartamayaasha ka soo qaybgalayaasha iyo dhammaan cid kasta oo maanta halkan inaan soo gaarna qayb ka ahayd ka faa'iidayso qiimo dhimis gaaraysa 70% oo $3 oo kaliya ku hel Mastercard